qabaqabada dadkan ciyaaraya horta waxay isku jiraan dadyo kala duwan qaar waxa weeyaan dadkii 80maadkii ciyaarayay sagaashamaadkii 2000 iyo wixii ka dambeeyay oo isugu sii jiraan haddana si kala qaybsan boqolkiiba 70 waa dadkii qolqol joogay ee dhulka joogay boqolkiiba 20 waa reer Djibouti boqolkiiba 10 waa Yurubiyada qurba joogay marka waa daa kala duwan laakiin ay isku keentay un ciyaarto taasina waxay muujinaysaa ciyaarto inay da lahayn xaafada lahayn magaalooyin lahayn waxba lahayn waxaan xad balahayn ay tahay ciyaaro garasho hore iyo garasho dambe ay isku keentay inay wada ciyaaraan ujeedaduna in la kulmo laga yaabo inaan la kulmi doonin ujeedada ugu weyn taabay bismillaahir rahmaanir rahiim horta maanta farxad weyn bay tahay muddo 25 sanadood ah in markii horeysay garoon Boorama ku yaala aan galo anigoo iloobay ciyaarta haddana rag badan oo ciyaartii ugu dambeysay 1993 markaan ka saftay garoonkii Baroole ee Boorama oo oday ka mid ahaa inaan maanta halkan kula ciyaaro oo ay muddo badan isku ka dambeysay horta aniga shucuur gaar ah bay run ahaantii ii sameysay iyo waliba dhiirigelin in daayirahan ismoodayba oo nin daayir ahay laakiinse run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadnaqay ragga soo qaban qaabiyay hawshan iyada ah oo igu dhiirigeliyay anigoon islahayn gal run ahaantii jawiga wanaagsan ee Boorama dadka dhalinyarada reer Boorama